سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal kusoo dhawaada koorsada HTML oo si taxana uga baahina kanaalkan. Waxaynu qaadan doonaa casharkii 18aad inagoo ku baran doonaa sida aad looga ku gaara u soo gashan karto website-kaaga qaybtiisa kore. Aan ku sharaxo loogadaasi halka ay website-kaaga kaga taalo iyo booskeeda. Tusaale YouTube markaad website-kooda gasho waxaa halkan kore ka soo muuqanaya loogada YouTube. website kastaana waxa uu leeyahay logo u gaara. website-kan oo ku sameeyay waa hore HTML iyo CSS. haddii aan fiirino xaqiisan kore ma laha logo, waxa saaran icon yar oo qaarada ku sawiran yihiin. haddii website-ka aad wax walba u dhameyso oonad logo ama astaan u yeelin, waxaad ogaataa inay wax badan qabiye yihiin. logadana maha ciyaar waxa ay ka mid tahay qaybaha ugu muhiimsan ee website-ka. waynu ku sii soconaynaa casharkeena 18aad. waxa kale oo aynu ku baran doonaa hanaanka cod ama audio loo soo geliyo website-ka. dabcan sida cod loo soo geliyo macadka wax badan waxay iska shabahaan casharadii aynu hore u soo marnay video iyo sawir sida loo soo geliyo website. ku sii dheeraan mayno sharaxaada, waxaynu si toos ah u guda galaynaa sameynta laabka. aynu soo furano editorka Notepad++. waynu joognaa editorkii, waxaanaynu haysanaa daaqad cusub sida loo soo furanaa in badan waynu soo aragnay. haddii aan isku dayno inaan ku celinno Ctrl N ayaa taaban. Ctrl N markaad taabato daaqad cusub baa ku soo furmaysa. hadda daaqad cusub oo kale inoma soo furmi karto waayo sababto ay tahay tan maynaan save garayn, waxna maynaan ku dhex qorin. marka tan ayaynu isticmaali doonaa. ugu horeyn waynu soo save garaynaynaa sidii caadada ahayd. file ayaan tagi, save as ayaan ka sii dooran. waxaan ku soo save garaynayaa desktop-ka. halkan magaciisan ku qori doonaa. waxaan leeyahay icon.html magaciisu intaas ayaan ka dhigaynaa. kadibna save baan leenahay. waan save garaynay. hadda waxaan qoraynaa codeskii luqadda HTML ayaa ugu horeysa. hoos baan u degaynaa, halkan baan kasoo xidhaynaa HTML. okay, halkanna waxaynu ka furaynaa tagga head. halkan ayaynu kasoo xidhi doonaa tagga head. waxaynu ka furi doonaa headka dhexdiisa tagga title oo inoo haynaya ciwaanka website-ka. title waxaynu qoraynaa website-keenan ama page-kan aan hadda ku jirno magaciisa. waxaan leenahay how to insert icon HTML page. waxaynu soo xidhaynaa title-ka laftarkiisa. waynu dhamaystirnay. waxaa inoo hadhay body oo ah jirkii website-ka. body hoos baan u degaynaa. halkan HTML-kan xidhan agtiisa ayaynu kasoo xidhaynaa body. waynu soo xidhnay. hadda waxaynu dhamaystirnay qaybihii asaasiga ee website-ka. waxaynu bedelaynaa kalarka page-ka. style baan leenahay sidii horeba aynu soo samayn jirnay. equal double quotation background minus color. waxaan ka dhigaynaa midabka green. Ctrl S. waynu soo kicinaynaa page-ka aynu shaqaynayeen kale. Chrome-ka ayaynu kusoo kicin doonaa. wakan page-ki wuu inoo shaqeeyey. kalarkii background-kii green-ka hana waa u qaatay. okay, waxaynu ka bilaabaynaa koodiskeena. h2 ayaan halkan ka furi. waxaan ku qori doonaa
html page. halkan ayaan kasoo xiri doonaa h2. okay, h2 hadda waan qornay. waxaan samayn doonaa koodhkii lagu soo gelinayay codka. waxa uu eegyahay koodhkani oo in yarun ay ku kala duwan yihiin koodhkii videoga lagu soo gelinayay. halkan waxaan ka furi doonaa audio, space baynu baxaynaa, control space leenahay, hoos baynu u degaynaa, taggii audio xagga kasoo xidhaynaa. taggii waynu soo xidhnay. waxaynu samaynaynaa inaynu qorno source-kii meeshii laga soo qaadayay, crc equal hala mid noqdo double quotation. waxaa inoo hadhay hadda inaynu qorno magacii codka iyo maxay ahayd formatkiisaba. si aynu formatkiisa u soo ogaano waxaynu samaynaynaa inaynu desktop-ka ku noqono, kadibna aynu dul tagno codka, right click marka aynu siinana aynu doorano property. halkan waxaa ku qoran magaciisii, waynu soo copy garaysan karnaa haddii uu kugu badan yahay oo kale control c. waxaad kaloo eegaysaa formatkiisa. formatkiisu waxa weeye m4a. okay, page aan ku laabano. waxaynu halkan ku paste garaynaynaa magacaan sidnay control v dot m4a control s. aynu kusoo kicino browserka. qoraalkii h2 uu yimi, sidoo kale codkina waa kan. haddii aynu daarno waa u daarmaya. gabaygani waa tixdii dardaaran xeelada degay. waanu jeednaa inuu shaqaynayo codkii. sidoo kale waxa uu soo bandhigayaa halka aad marayso iyo codku inta uu soconayaba. marka waxaan filayaa koodhka inaynu fahanay iyo sida uu shaqeeyaba. waxaynu kaloo samaynaynaa taggeeni kale icon sida loo soo geliyo logo website-ka. aan page-keeni ku laabano. sida aynu kusoo tilmaanay casharkeena hordhiciisii, icon-kan waxaa la gelinayaa labada head ee midna furan yahay midna xiran yahay dhexdooda. halkan waxaynu ka furaynaa tagga. waxaan leenahay linki rel equal double quotation. halkan waxaynu ku qoraynaa icon way ka yara baxaynaa. halkana waxaan leenahay tape nooca ka dhig equal double quotation x minus icon. ka yara baxaynaa waxaan leenahay href tixraax samee equal double quotation. halkan waxaynu gelinaynaa loogada iyo formatkeeda. sidoo kale loogadu haddii aanay page-ka isku meel aalin waxaad soo qaadaysaa location-keeda. marka desktop-ka ayaynu aadaynaa. waxaan filayaa inay logo taalo. haatan laftirkeedu waa logo. right click baan leeyahay. waxaan tegi property-geeda. magaceedu waa golden 2. formatkeeduna waa png. marka page-keena aan ku laabano. waxaan qoraynaa golden 2. formatkeeduna muxuu ahaa png. okay, control s baan leenahay. waxaynu kusoo kicinaynaa chrome-ka. daaqadahan kale iska soo xidhno si aynu aragno. okay, halka ay degayso loogadeenu waa halkaas. marka loogadu sidaas ayay u shaqaysaa. casharkeenii 18aad oo aynu ku baranaynay sida loo soo geliyo cod page html iyo sida loo soo gashado qaybta kore ee website-kaagu. intan ayuu ku eegyahay. tan iyo casharka xigeenteenu ku kulmayno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.